بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم sida maarayaha dekadu wakaalada dekadu uu sheegay arintaas shaqaaqada ka soo baxday waxoogaa dekada iyo isku isfaham waa yani shirkadii DP World ee la wareegtay dekada Berbera iyo shaqaalaha ka shaqeynay intii ka soo baxday kulli sida maarayuhu u tilmaamay ayaa arinkooga loo galay halkan ay madaxtooyada ilaa shalay ilaa xalay ilaa saaka uma kala kicin haday DP World tahay haday shaqaalihii dekada shaqeynay yihiin labadaba iyo gudi ahaan yani xukuumad ahaan wixii aanu arintaas ka soo saarnay guud ahaan waxa ku soo gabagabeynaya in ay arintaasi ku dhamaatay jawi isafgarad oo aad iyo aad u wanaagsan la isku fahmay wixii lagu kala cabanayay wixii dhiman sixitaan u baahana in ilaa bisha 30keeda ama 27keeda in la dhameystiri doono laakiin tafaasiil badan oo hadda halkan aan isu soo taagnay ma jirto waxaan u cadeynaynaa shaqaalaha dekada iyo dhammaan shacbi weynaha Soomaaliland iyo xukuumadba waxaan u sheegaynaa warbaahintaba in arintaasi ku dhamaatay jawi isafgarad isfaham iyo in shaqadii iyo horumarintii dekada Berbera loogu talagalay inay halkeedii iyo sideedii u soconayso anigu ka wasiir ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kulley xuquuqda shaqaalaha rayidka imika shaqaalaha Berbera waa rayid maaha shaqaale dawladeed marka shirkad baa maamusha xil baa iga saaran inaan ilaaliyo la socdo kontraadadooda heshiisyadooda waxa ay ka cabanayaan intaba xil baa iga saaran kulley waan isla soo garanay arinta waanan sii wadi doonaa heshiisyadooda iyo inta sida wax loola galayana waxbaan kulleyba wixii aanu isla garanay DP World ayaan kaga kordhin doonaa waan ka soo saari doonaa insha Allah taala sidaas ayay arintaas ku soo gabagabowday si wanaagsan baana la isugu afkartay hadda waxa halkan gadaashayda jooga ama dhinacyadayda gudigii ay soo dirteen shaqaalaha dekadu ayaa halkan jooga iyaga ayaa kulley faahfaahin doona ama sheegi doona iyaga laftoodu in arintaasi ay jawi isafkarad ku dhamaatay lana xaliyay wixii dhimanna la sixi doona ilaa bisha 27keeda halkeegana loogu tagi doona insha Allah taala haday dhinaca DP World tahay iyo haday dhinaca shaqaalaha tahay labadaba qoraalo fara badan iyo sharax badan halka la isugu iman doono insha Allah taala sidaas ayaan u sheegaynaa aad iyo aad bay warbaahinta iyo shacabka baan uga raali gelinayna hadii ay maqleen يعني سفكرن waa caynkaas dekada ka soo baxay waa dhamaatay arintaasi sidaas iyo wanaag bay ku dhamaatay aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh